Soil Transmitted Helminths STHs gooryaanada ku gudbaan ciidda waa koox gooryaamo ah kuwaas oo u gudbaan bini'aadamka marka ay taabtaan ciid wasakhaysan. Gooryaankani ama gooryaamadani waxay ka mid yihiin caabuqyada ugu badan ee caalamka oo dhan, gaar ahaan dhulka kulaylaha ee nadaafadoodu liidato. Saddexda nooc ee ugu waaweyn STHs waxaa ka mid ah nooca koowaad gooryaanada roundwormska loo yaqaano ee uu ka mid yahay Ascaris lumbricoides. Kuwani waa gooryaan waaweyn oo kori kara ilaa 35 sentimitir dhirir ahaan, waa ku dhowaad nus mitir dhirirkooda. Caabuqani waxa uu yimaadaa marka ukunta ama ukumaha gooryaanka ka soo baxa ciidda wasakhaysan la nuugo. Nuugidda ma ahan sidii caadiga ahayd, inta badan iyada oo loo marayo ama ay u soo marayaan khudaarta iyo miraha aan la dhaqin. Nooca labaad waa gooryaanada hookwormska loo yaqaano oo ay ka mid yihiin Ankylostoma duodenales iyo Necator americanus. Gooryaamadani waa yaryar yihiin, caadi ahaan dhirirkoodu wuxuu gaarayaa 1 sentimitir ama 1 sentimitir. Waxayna geli karaan maqaarka, dadku waxay ku qaadi karaan cudurka markay caga la'aan ku socdaan ciidda wasakhaysan. Nooca saddexaad waa gooryaamada loo yaqaano webwormska oo uu ka mid yahay Tracheoris tracheiroria. Gooryaamadani waxay kori karaan ilaa 4 sentimitir oo dhirir ah. Caabuqa wuxuu u dhici karaa marka ay dadka jirkooda soo galaan ukunta gooryaanada ee ku jirto ciidda wasakhaysan, inta badan iyada oo loo marayo gacmaha iyo cuntada aan nadiifka ahayn. Infekshanada STH waxay dadka u horseedi karaan arrimo caafimaad oo kala duwan oo ay ku jiraan nafaqo xumo, dhiig yaraan iyo korriinka garashada ee carruurta oo daciifa. Ka hortagga caabuqyada STH waxay u baahan tahay hagaajinta iyo horumarinta nadaafadda sida gacmo dhaqashada iyo samaynta barnaamijyo wacyigelin ah oo joogto ah meelaha ay dhibaatadu ama saamaynta cudurka ay ku badan yihiin. Muuqaalkan intaas ayuu ka egahay. Waxaan rajeynayaa in aan muuqaalkan wax un ka faa'iideyn, balse muuqaaladeena xiga ayaan gooryaanadani mid ugu soo qaadan doonaa hadduu Alle idmo. Khayr badan.